baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo kulan ku yeeshay maanta xaruntiisa magaalada Garowe ayaa xasaanada waxa uu ka qaaday ilaa 8 xubnood oo ka tirsan golahaasi. Arrintaasi waxa ay timid kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay xasarad xoog badan ka dhex jirtay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo xubno ka tirsan golahaasi. kulanka labaatanaad kala fadhiga 47aad ee golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa xasaanadii looga xayuubiyay ilaa 8 mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi. xirilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan ayaa golaha la wadaagay dacwad ka dhan ah 8daasi xildhibaan, waxaana uu ugu horeynba golaha ka codsaday in xasaanada laga xayuubiyo si dacwad loogu soo oogo mudanayaashaasi. xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka labaad qodobka 64aad faqradiisa 17aad qodobka 128aad qodobka 37aad faqradiisa 5aad qodobka 131aad 132aad iyo 134aad faqradiisa 2aad ee dastuurka dowladda Puntland iyo qodobka 3aad faqradiisa 7aad qodobka 8aad faqradiisa 23aad qodobka 24aad qodobka 26aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 11aad xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland. waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda ayna golaha hor yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yeeray. xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqeeyay qaarkood, waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada, waxay ku xadgudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tegay. waxay ku kaceen falal ka soo horjeeda sharafta, qiyamka iyo karaamada golaha wakiilada Puntland, waxayna sameeyeen carqaladayn shaqo, aflagaado iyo hanjabaad ay u geysteen guddoonka iyo xubnaha kale ee golaha wakiilada. waxay si sharci darro ah hor istaageen waajibaadkii shaqo ee wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga loogu yeeray sida ku caddayd ajandaha golaha wakiilada ee maalintaas. iyagoo awood u isticmaalay waxay hadalkii ka joojiyeen wasiirka, iyagoo wakhtigaas ka horna iska hortaagay inuu soo galo howlka golaha wakiilada, iyagoo u gafay sharaftii mas-uuliyiinta wasaaradda oo si dastuuri ah loogu yeeray. waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka, sharciga dastuurka dowladda Puntland ee xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaalla. waxay u hoggaansami waayeen dastuurka iyo raacii shaqo ee golaha wakiilada Puntland. gabagabada eedda anigoo tix raacaya qoraalka lambarkiisu yahay xaaga DBL 119/2020 ee la qoray 30kii bishii 11aad 2020 kana soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada, nuxurkeeduna ahaa dacwad ku oogid xubnaha magacyadoodu aan kor ku soo xusnay. wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland si sharafi ku jirto u weydiisanayaa in xasaanaariyo in habraaci lagu maxkamadayn lahaa loo bilaabi lahaa. fadhiga golaha wakiilada oo ay joogeen 38 mudane oo dhageysanayay eedaynta xeer ilaalinta ay u jeedinayso 8daasi xildhibaan ayaa ugu dambeyn cod geliyay eedaynta xeer ilaalinta, waxaana codayntii ay u dhacday sidan.
mudanayaal xildhibaanada kala ah xildhibaan cabdijamaal cismaan maxamed xildhibaan saleebaan faarax ciise xildhibaan cabdiqani abshir jaamac xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud xildhibaan muuse siciid xasan xildhibaan maxamuud maxamed barre xildhibaan cabdicasiis siciid maxamuud xildhibaan maxamuud axmed caalin in xasaanadda laga xayuubiyo yaa ogol yaa diiday yaa ka aamusay mudanayaal kooramku waa 39 codayntii waxay u dhacday sida tan ogol waa 35 mudane diidmo waa 3 mudane aamus waa 1 mudane 39kii cod sidaasay ku dhan yihiin sidaa daraaddeed 8 xildhibaan ee magacyadooda aan idin xaadiriyey sidaas ayaa goluhu xasaanadii kaga xayuubiyey laga bilaabana maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dad shacab ku yihiin waana mahadsantihiin waana ansax codayntaasi